السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داوديال kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo la yeelano Sufyaan Sheekh Axmed oo kamid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed isla markaasna daraasad ku sameeyay calanka Soomaaliya oo sheegay inay ku jiraan waxyaabo aan wanaagsaneyn ummadda Soomaaliyeed oo ay kamid tahay calaamada Kiristaanka Sufyaan Sheekh Axmed marka hore kusoo dhawow TV-ga on cable iyo barnaamijkan aan kugu waraysanano waxaadna faahfaahin nooga bixisaa Sufyaan waa kuma marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa mahadsantihiin waan mahadsantahay adiguna shakhsiyan anigu waxa saad u sheegtaba waxaan ahay aqoon-yahan ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxbarashadeedii ugu horeysay dugsiga hoose dhexe waxaan uga soo baxay Soomaaliya sidoo kale dugsiga sare qaar ahaan luqadda Carabiga waxaan ku dhigtay Soomaaliya xalane haddana waxaan aaday qurbaha waxaan haddana dugsi sare mar labaad ku celiyay Canada ka soo tagay Mareykanka ayaan nimid waxaan galay sidoo kale nasiib u yeeshay inaan wax ku barto jaamacad la yiraahdo UCSD University of California San Diego markaan ka qalin jabiyay haddana waxaan aaday mixnad waxbarasho waxaan u aaday Spain waxaan ka soo qalin jabiyay haddana jaamacadda ku taala Spain caasimadda Madrid ee la yiraahdo Complutense muddo ayaan ku soo shaqeeyay takhasuskaygu wuxuu yahay siyaasadda guud xiriirka caalamiga adduunka iyo luqadaha khaasatan luqadda Englishka iyo luqadda Isbaanishka oo aan runtii ku noqday macallin oo wax ku shaqeynay inaan wax baro ardada adayadu mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa sidaad noogu soo koobtay waxaad sheegtay in calanka iyo calaamadda Soomaaliya ay ku jiraan waxyaabaha ummadda Soomaaliyeed u wanaagsanaan diin ahaan maxaa kamid ah waxyaabahaas calanka Soomaaliya iyo calaamadda Soomaaliya waxaa ku jira calaamadda Kiristaanka cilado kale oo fara badan ayuu leeyahay runtii oo ay kamid tahay in calanka Soomaaliya macnihiisa runtii uu yahay macno calanka sameynta calanka iyo in la macneeyo calanka ay horeysay sameynta calanka oo dadku u wada jeedo markaan taas wax yar dhex galo waxaad fahmi kartaa calanka Soomaaliya markaan fasirayno ama dadka Soomaaliya fasirayaan waxay yiraahdaan waa cirko kale xidigta marka la fasirayana waxaa la yiraahdaa waa shanta geesood waxay u taagan tahay shanta Soomaali waxaad fahmi kartaa taas waqtiga calanka la sameeyay waa 1954 Soomaaliya xor ma ahayn waxaa kaloo fahmi kartaa waqtiga isaga dadka wax qora ama wax akhriyo oo Soomaalida ay aad bay u yaraayeen waxaa kaloo fahmi karnaa maanta marka aan rabno in aan qof macnaha dawladda Soomaaliya ama tii hore ama tan baa ahaatee markay rabaan inay shakhsi sida ciidamada kale inay dalacsiyaan ama darajo siiyaan waxa la siiyaa hal xidig lama siiyo xidig jabkeed anaguna waxaan xidig jabkeed u qoondaynay qayb dhan oo Soomaaliya kamid ah taas waxaad fahmi kartaa marka micnuhu inuu dambeeyay oo markii gumeystihii uu sanka noo galiyay nala ku qasbay ama nala ka dhaadhiciyaba inaan calankan qaadano sidaad waxa ku jira hadda hadii baaritaan la sameeyo waxaad arkaysaa macnaha hadda sawirkan oo kale waxaad ku arkaysaa in calankii la sameeyay 1936 uu ku dhex jiro calankii Soomaalida calanka Soomaalida hadda aan haysano laga soo dhex saara asaga marka ma aha calan anagu aan samaysanay ma aha mid salona ma taas waa mid kale calaamadda astaanta ah Soomaaliya qaybteeda kore waxa ku dhex jira calaamadda Kiristaanka shan xabo ayadoo ay ku dhex jirtaa waxaana la kugu qariyay markaad qaabka kore fiirso wuxuu og yahay waxa la dhaho mosaic architecture oo masaajidada oo kale aad ku arkaysid laakiin gudihiisa waxa ku jira shan xabo oo crosska arinta iyada waa arin runtii iga yaabisay markaan dad badan la wadaagana aad uga yaabisay waxaad sheegtay in calaamadda Kiristaanku ay ku jirto astaanta Soomaaliyeed ma wax adiga uun ku muuqdayba mise waxa jira aqoon-yahano kale oo arkay balse aan sidaadoo kale bulshada la wadaagin marda tahay aqoon-yahanada Soomaaliyeed aad kamid tahay way jiraan aqoon-yahano kaliya ma ahane waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo arintan arkay kuna baraarugsan hase yeeshee waxay runtii awood u yeelan waayeen maadaama Soomaalidu waxa waa dad jecel calanku wuxuu Soomaalida uga jiraa meel gooni maantadaas la joogo markaan dadka la wadaago oo tuso oo dhaho calaamadii Kiristaanku waatan qof walbaaba waxaad moodaa inuu xanaaqo macnaha waxa ka soo baxay qofkii shucuur ah in wax loo geystay ama xumaan loo geystay wuxuu aaminsanaa
family wadigoo nin aaminsan qabrigan uu awliyahay maanta ku yiri awliye ma yahay hadaad ku tiri qofkii waaba naxayaaba marka dad saasa jira laakiin way jiraan dad badan oo Soomaaliya oo arkay aaminsan arintana wax ka wada goorma ayaad ogaatay ka Sufyaan ahaan in calaamada Soomaaliya ay ku jirto wax muujinaysa inay u eegtay calaamada Kiristaanka runtii ma aha wax muujinaysa waa calaamada Kiristaanka oo saxda ah ayaa ku dhex jirta hase yeeshee markaan ka jawaabo su'aashaada markii ugu horeysay oo aan fahmo waxyaabaha dhaliyay runtii waxa kamid ahaa inaan anigoo markaan wax baranayay jaamacadda baranayay inaan waxyaabaha aan bartay waxa ku jira diimaha kala duwan ee adduunka iyo dhaqamada adduunka waayo mar hadda baranaysid waxa siyaasadda la yiraahdo waa inaad barataa siyaasadda salka waxa ay ku hayso oo ah dhaqamada kala duwan diimaha kala duwan iyo wixii lamid waa qayb kamid ah waxaan runtii arkay calan aan u eg calankii Soomaalida intaan Mareykanka joogay taariikhda intaan baranayay Mareykanka gaar ahaan markaan baranayay calankii runtii wuu iga yaabiyay uma haysan in calan Soomaali oo kaleeto oo isaga u eg uu jiro arintii baaritaan markaan ku sameeyay waxaan ogaaday calankan in ay leeyihiin ciidamada cirka generalada ciidamada cirka Mareykanku inay leeyihiin haddana markaan sii baaray waxaan ogaaday inuu calankan yahay calan uu leeyahay gobol kamid ah gobolada Mareykanka oo leeyahay Texas markay xor ahaayeen ay independent ay ahaayeen la weeraray la qabsaday ay u tageen dadka wax sheega waa sida taariikhdu ay leedahay dadka wax sheega marka loo tagana ay u tageen lagu yiri calankan iska tuura waa calan dagaal isla markaasna ay la wareegteen ciidamada generalada ciidamada cirka ayaga marka wuxuu ugu taagan yahay markaan arinta u fasiro dadkeena bulshada Soomaaliyeed micnaha calankaasi uu leeyahay ayaga waxay tahay waa cirki iyo xidig ayaga micnaha uu leeyahay waxa weeyaan annaga cirka xukunna macnaha awoodda cirka ee uu leeyahay Mareykanku ayuu wuxuu u yahay astaan calankaas buluuga oo xidigta dhexda ku arintaasi waxay ugu dhalisay inaan baaritaan ku sii sameeyo dhammaanba astaamaha Soomaaliya noo yaal muddo kadibna waxaan la kulmay ama aan fahmay in astaanta Soomaaliya calaamada Kiristaanku ay ku jirto waxaan aaminsanahay in ay ahayd intii aan qalin jabin ka hor adigu 2003 2004 intaanad bulshada Soomaaliyeed u soo bandhigin in calankooda ay ku dhex jirto calaamada Kiristaanka ma jira dad ama bulshada Soomaaliyeed kamid ah aqoon-yahano siyaasiyiin ama bulshada qaybaheeda kala duwan oo aad u bandhigtay oo aad arintaasi wax ka tustay way jiraan waxaa jira dad badan oo aan la wadaagay waxay soo socotay muddo markaan la wadaagana qof walba ayba wuxuu garawsaday in ay tahay runtii shay laga xishoodo dadka qaarkiis xataa dadka mutacalimiinta iyo dadka aan la wadaagay mutacalimiin kaliya bulshada inta badan dadka aan la wadaagay dadka qaarkood xataa waxaad dareemaysaa waxaan dareemay markii aan ka dhaadhiciyay ama ay arkeen waxa ku jira waxay dareemeen waxa la yiraahdo niyad jab runtii aad u weyn oo qaarkood xataa iska aamuseen marka way jiraan dad badan oo mutacalimiin dad badan oo aan mutacalimiin ahayn oo Soomaali ah maantana dadku runtii waa dad baraarugsan oo ma aha waqtigii calanka sankan la ka galiyay ama nala ku qasbay ama nala ka dhaadhiciyay oo kala ma aha maanta dad Soomaalida waxay barteen xadaaradii leeyihiin waa dad fahamsan dhaqankooda iyo diintooda iyo waxay yihiin marka dadka kala duwan ee aad sheegtay ee aad u soo bandhigtay calanka Soomaaliya in ay calaamada Kiristaanka ku jirto intooda badan waxaad kala kulantay arrin wanaagsan aad leedahay sidaas ayaan kala kulmay bal waxaan kala kulmay in ay runtii aad ugu xun yihiin rabaana in la bedelo qaarkood xataa waxay macnaha niyad jabka ku dhacda daraadood waxay soo wacaan inta badan waxaan ka wada hadalnaa waxay isku dayayaan inay macnaha calankan cusub ee hadda aan wada tashiga ku soo bandhignay in ay taageeraan arintaasi ma u bandhigtay hogaamiyaasha hadda Soomaaliya xilka haya oo ma u sheegtay si arintaas wax looga qabto hadii wax laga qaban karo maya umaana ma dhigin wali dawladana wali ma aysan gaarin waa laga yaabay inay macnaha social media iyo inta oo wareysiga kan oo kaleeto inay ku arkaan waa laga yaabaa waxaan ka soo bilownay waxa la yiraahdo dhaqaaqa bulshada oo ah dadka macnaha runtii la rabo inay marka ugu horeysa fahmaan dawladda Soomaaliya waxay leedahay baarlamaan waxay leedahay madax bay leedahay hadii la bedelayo calanka waa la bedeli karaa wax fudud weeye balse nidaamkii lagu bedeli lahaa ama qaabkii lagu bedeli lahaa marka horeeto waa inay arkaan baahida shacabku ka jirta u malay maanta hadii
waa laga yaabaa inay macquul tahay oo dadka maanta xilka noo haya waa dad garaadkoodana ku filan yahay waxna fahmi kara waa laga yaabaa inay markiiba nala qaataan oo isla markiiba ay bedelaan oo wadanka ay naga badbaadiyaan ceebtan haysta waa laga yaabaa runtii ilaan ceeb weeye anagoo dowlad islaama oo dad islaam oo xadaari ah in maanta calaamadii kirishtaanku ay noogu jirto astaanteena Soomaaliya waxaan qaadanay fikirka ah in marka ugu horeysa aan shacabka ka dhaadhicino markuu shacabku fahmo kadibna dowladeenu dabcan waa dowlad islaama madaxweyne islaam weeye wasiiradeena iyo baarlamaanka kulligood waa islaam u malay maayo in ay calool u hayaan ama ay doonayaan inay calaamada kirishtaanku qayb ka sii ahaato astaanta wadankeena sidaa sheegtay waxaad samaysay calan iyo astaan aad doonaysa inay Soomaaliya yeelato sidee bay kugu suurta gashay calanku iyo astaantu waxay ka turjumaan waxay leeyihiin la saddex micno oo waaweyn waa la sii badi karaa laakiin saddex micno ay leeyihiin oo waaweyn saddexda micno waxaa ka mid ah kow in ay tahay wax ka turjuma dhaqanka diinta xadaaradda ama iyo macnaha iyo dadkaasi waxay yihiin in ka turjunto waa mid koowaad waxaan raadinaa marka calan ka turjuma dadkan Soomaaliyeed dhammaantoodba calan ka turjuma waxaan u fiirinaa marka saddexda qaybood oo kala diintooda dadkan waa dad islaama waa diin leh waa mid koowaad waxaan u fiirinay maxaan rabnaa adduunka inaan u sheegno maxaan rabnaa in nala ka arko qofka ajnabiga ah marka uu maanta yimaado Soomaaliya ama uu calanka Soomaaliya arko maxaan rabnaa inuu ka fahmo maxaan rabnaa inuu akhriyo waa qaybta labaad qaybta saddexaadna waxay tahay wiilka yar ama gabadha yar ee Soomaaliga ee soo koray sidee baan rabnaa niyadoodu inay noqoto sidee baan rabnaa in ay ku noqdaan wadaniyiin sax ah sidee baan rabnaa in ay ku jeclaadaan wadankooda saddexdaas dhinac ayaan ka fiirin saddexdaas dhinac markaan ka fiirin marka waxaa noo suurta gashay inaan calankii blue colorkii ahaa bluega ama colorkii cirko kala inaan ka tagin colorkaas inaan qaadano waxaana colorkaas aan u qaadanay in Soomaaliya ay leedahay badda ugu balaaran ama xeebaha ugu balaaran Afrika in calanka in colorkan ama midabkani uu yahay midab hore u jiray oo taariikhan marka la fiiriyo gumeysiga ka horeeyay laakiin markaas qaabka loo sameysnaa qaabka hadda uu sameysnay waxaan kaloon ka fiirinay in aan dadkii tusno wadankan inuu yahay wadan islaam ah waxa kaloon ka fiirinay aan ku sameynay in aan ku muujino shantii Soomaaliyeed ama shantii qaybood oo Soomaaliya oo markii hore qayb walba la siiyay xidig jabkeed in ay shan xidigood u taagnaato sidaas ayaan marnay waa calanka marka calanka waa midab blue ah oo u taagan cirka iyo badda midab cadaan oo u taagan nadiif islaamnimo iyo nabad u taagan calaamadii islaamka oo bishii xidigtii ahaa xidigtaas oo Allah ay dhexda uga sii qoran tahay magac Ilaahay iyo shantii xidigood oo u taagan shanta Soomaali calankiisaas aan sameynay waxaan kaloon sameynay astaanta ama waxa loo yaqaan coat of arms ama astaanta Soomaaliya intaasi waxaan gelinay meeshii awal hore calanka uu ku jiray halka xidig iyo midabkii buluuga uu ku jiray aan gelinay meeshii calaamadda kirishtaanku shantii xabay ku jirtana waxaan ku bedelnay shan xidigood oo u taagan shanta Soomaaliya ka kor waxaan ku dhignay 7 xidigood oo u taagan 6 maamul goboleed oo Soomaaliya ka kooban tahay iyo caasimadda Muqdisho salkooda dambe waxaan ku muujinay ishaysasho cirkii badii biyaheedii iyo dhulkii iyo markab oo turjumaada ama wax laga akhrisanaya ay tahay kow in aan caan ku nahay ama aan leenahay xeebo aad u qurux badan in aan leenahay bad aad u balaaran in aan leenahay khayraad far badan oo badda ka yimaada labo doontu waxay sheegaysaa khayraadka iyo dabcan waxaan rajaynaynaa markii mustaqbalka dawladda sidaan oo kale waxay ku qasban tahay inay samaysato awood ciidamo badeed oo xoog badan ayadoo taas ay ka turjumaysaa marka qaabka noocaas ayaan u marnay waxaad fahmi kartaa calankan hadda aan sameynay iyo calaamadda aan sameynay micnahooda iyo samayska waxaa horeeyay micnaha waxaan ka fikirnay markii hore maxay u taagnaan karaan sidee baan rabnaa in loo arko dhalinyaradu ama wadaniyiintu say rabaan inay u arkaan maxaa rabnaa in la ka fahmo maxaa astaan noo
meesha calankii hore markii asaga la sameeyey kadib micnihiisa la fakray oo calanku uu ku horeeyey micnaha ma fikrad adiga ka timi uun baa mise waxaa jira dad kale oo Soomaaliyeed oo kala qayb qaatay sameynta calanka cusub oo dad Soomaaliyeed kala qayb qaatay kaligay fikriga timid ma iga yimid ma aha dad badan oo aqoon-yahana ayaan arintan muddo ka shaqeynay oo aan ka fariisanay fikirkaanina waa fikir ka yimid qaybaha bulshada oo kala duwan maxaa kamid ah waxyaabaha aad ku soo kordhisay ama aad ku xulatay calanka iyo calaamada cusub ee aad doonayso inay Soomaalidu qaadato runtii waa waxa aan ka fikirnay markii ugu horeysa qofka markuu maanta calankan cusub ee hadda aan abuurnay markuu arko wuxuu arkayaa kow inaan dad islaam wuxuu arkayaa inaan nahay dad xadaariya oo macnaha taariikh ama history leh ayuu arkayaa wuxuu arkayaa macnaha midabada adduunka ka jira micnay leeyihiin maanta midab aan micno la'aanayn ma jiro wadamada ama caalamka islaam kala duwan ama islaamahaada ama yuusan ahana calankoodu midabada uu leeyahay midab kasta micno u taagan kalarka bluega calanku hadda uu leeyahay anaguna aan dooranay inaan sii wadno ninkastoo kusoo darna cadaanka wuxuu u taagan yahay caalamka waa aragtay United Nationka calanka color isku color aan ahay United Nation waxay u qaateen because waa la fakaray waxa looga fakaray maadaama organization-kan ama qaramada midoobay yihiin organization adduunka dhan macnaha u taliya ama farageliya in ama ay ku midaysan yihiin in loo sameeyo calankii ama calaamadii adduunka oo ah calanka calaamada buluuga marka sidaas ayaan ku dooranay runtiina ilaa ay hadda qof walba oo Soomaaliya oo aan tusnay aad ay u soo dhaweey wali ma aanan arkin hal qof oo diiday maba la diidi karaba waa calan laga fakaray kana turjumay runtii astaanta Soomaalida iyo Soomaalinimada waxaa jira in xidigta ku taala calanka Soomaaliya ee leh 5 falaarood aad ka dhigtay ilaa 5 xidigood oo taas meel loo oran karin waxay sameynaysaa macno kale oo ah in 5 Soomaaliyeed ay kala madax banaan yihiin runtii fikirkaas waa ka fakarnay laakiin waa laga xoog batay waa la isdhihi karaa oo dabcan markaad wax samaysid sida tan oo kale wax ka dhaxay bulshada oo dhan ama astaan ka dhaxaysa bulshada oo dhan markaad samaysid waxa soo gali kara turjumaano fara badan laakiin markasta waxaad moodaa in ay xoog badan tahay fikirka ah in 5 Soomaaliya ay u taagnaato 5 xidigood meeshii 5 Soomaaliya ay uga taagnaa lahayd hal jab oo xidig ay leedahay mid kale waxa runtii ku jira maantay oo laga maarmaan ah inaan ka fikirno 5 Soomaaliya waqtigan xaadirka oo hadda lagu jiro midowgoodu ma aha runtii mid hadda dadka Soomaalida madaxooda ku jira Soomaalida Kenya meesha ay joogto waa ku sharfan yihiin waana wax dhiba kuma haysto Soomaalida Ethiopia sidoo kale meesha ay joogto wax dhiba kuma haysto Soomaalida Djibouti waa wadan ay wasiirada gooni go'an waxa labada hadda midka ay wax ka dhaxayaan waa Somaliland iyo Soomaalida koonfurta marka xidigahaas dabcan hadii xataa maanta loo qaato inay 5 Soomaaliya ay yihiin oo midowgoodu uu yar yahay wax dhiba ma keeni karto laakiin waxa dhib keeni kara inaysan jirin astaan ay isku gartaan astaan Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay iska leedahay oo Soomaaliya ay samaysay oo ka turjumaysa waxa Soomaalinimadu ay tahay diintooda dhaqankooda dhulkooda iyo waxa ay yihiin calamada deegaanada Soomaalida ma jira calan ay ka muuqdaan astaamahaas leedahay waa ku habboon yihiin arrintaasi waa horta arrin taariikhi ah arrinta taariikhi agana calanka maantay la dhihi karo wuxuu ka turjumayaa dad Soomaali ah oo intaan hadda anagu isla fiirinayna wax ama aan arrintan qaada dhigaynay runtii noo la qurxoonaaday anna ila qurxoonaaday waa calanka ay reer waqooyiga ama Somaliland ay maantay haystaan waxay tahay wuxuu leeyahay midabo micno leh midabadaas micnaha lehna taariikh ahaan waxay ku salaysan yihiin waqtigii ka horeeyay dagaalkii Ingiriisku ku soo qaaday saad ogtahay waxa ka jiray dhinaca Soomaaliya waxa iskaga daba maray 3 xukun intaan hadda ognahay waxay ahayd boqortooyadii Ifaad boqortooyadii Cadaal iyo ayadoo markii dambe noqotay qayb Turkigu uu maamulo oo region calamada ay lahaayeen waxay ahaayeen cadaan guduud ayaa markasta ku jiray
marka kalarada halkaasi ka yimaadeen waxaa kaloo ku qoran oo runtii dee qof islaama uusan kasii jeesan karin ama aan la inkiri karin tawxiidka ku qoran marka calanka maantay ka turjumaya dad islaam ah oo Soomaali ah inta maamul goboleedyada haysato waa calanka Soomaaliland dhanka kale calaamada cusub ee aad doonayseen Soomaaliya ay qaadato waxaad ku xustay ilaa 7 xidigood oo yaryar maxay macna sameynayaan xidigahaasi maxaad si halka aad sheegtay inay ku jirtay calaamada kiristaanka aad ku bedeshay calanka Soomaaliya meeshii calaamada kiristaanku ay ku jirto waxaan ku bedelnay 5 xidigood oo u taagan shanta Soomaali 7 xidigood ee midabka dahabka leh ee ku dhex jira astaanta gudaheeda ee 5 xidigood ka sareeyana waxay u taagan yihiin maamul goboleedyada Soomaaliya oo 6 ah iyo Muqdisho ay u taagan yihiin 7daas maamul ay u taagan yihiin mana ahan waa wax dabcan hadii ay wax isbedelaan ama maamul goboleed cusub u yimaado ama maamul goboleed cusub meesha uu ka baxo ama qaabka loo bedelo waa xidigo laga saari karo waad ogtahay calanku ma aha waxyi kitaab ku yaala oo aan la bedeli karin maaha waa wax dad ay samaysteen una samaysteen in dadka kaleetana ay ka fahmaan wax ay yihiin ayaguna ay isku guubaabiyaan oo ay ka keenaan in dadkii ku hoos noolaa ay dareemaan wadaninimo jacayl iyo midnimo waxa kaloo muhiim ah oo calaamada astaantii hore Soomaaliya runtii ku yaala calaamada calanka hoose ee cadaanka ah ee meesha hoose ku yaala banners markii la abuuray waqtigii isaga ah ee la abuuray waxba lagu ma qorin caalamka kale markaa fiirsid waxa ugu qoran halku dhiga wadanku uu leeyahay anaga keena waa marin waxba kuma qorno waxaan ku soo ziyaadinay meeshaas inaan ku qorno midnimo iyo sinaan oo ah cadaalad in shakhsi walba Soomaalihi uu helo cadaalad iyo inay ku midoobaan cadaaladaas inay ku midoobaan jacaylka wadankooda inay ku midoobaan quruxda iyo dhaqaalaha wadankooda calankani waxa kale uu ka dhaadhicinaya ama waxa kale oo islanahay uu ku guuleysanaya inuu qofka Soomaaliga ka sii dhigo wadani ka sii dhigo islaam qofka Soomaaliga uu ku sii adkaado dhaqanka uu leeyahay diinta uu leeyahay jacaylka wadankiisa intaas oo dhan wuxuu xalinayaa saan isleenahay tafaraaruqa Soomaaliya ka dhex taagan iyo dagaalada badan ee aan soo marnay calanku wuxuu ka mid yahay waxyaabahan dhankooda laga marin bulshada Soomaaliyeed qaab sidee ayaa loogu qancin karaa inay ka tagaan calankii iyo calaamadii hore ee Soomaaliya lahayd isla markaasna ay qaataan kan cusub aad abuurteen runtii horta waa runta dadka Soomaalida calanka aad ay u jecel yihiin waa waxa kaliya ee maantay dadka Soomaalida ay runtii jecel yihiin hase yeeshee uma arko inay dib noqon doonto in laga dhaadhiciyo bulshada Soomaaliyeed in ay bedelaan mar haddii ay ku arkaan inay ku jirto calaamado qalada ama calaamada kirishtaanka inay ku jirto haddii arkaan ama ay fahmaan calankani ama astaantan in la sameeyay oo ayaga loo sameeyay qofka Soomaaliga ee maanta ka dhaadhiciya calankan Soomaaliya samaysatay waa qof aan taariikhda fahmi karin ama qof aan fahmi karin xaaladdu sayta konton iyo afartii wali waxaan ku jirnaa anagu isma maamulno markaas wali waxaan ku jirnaa uma aan dagaalkii iskama aanan riixin dadkii konton iyo afartii marka lagu sameeyay qofka xataa dadka waxa la yiraahdaa nin baa calankan keeno sida taariikhda aan ku maqlay waxa la yiri isaga xataa waxaan u maleynayaa nin la yiraahdo Cawaale magaciisa dambe Cawaale uu yahay inuu yahay ninka macnaha maanta Soomaalida ku tilmaanto wuxuu leeyahay markii la isku yimid oo laga doodayay anigu kayga halkaan aan ku qarsaday sidaan looga dooday markii dambe la soo baxay waxaad fahmi kartaa macnaha waxaad u jeedaa dadka waqtigaas jiray waxay ahaayeen dad hatta dadkooda wax yaqaan waxay ahaayeen dad gumeystihii ama dadkii markaa joogay wadamada shay ay soo tababareen waxaad fahmi kartaa inaysan taariikhdaasi sax ahayn sababtoo ah 1936 waxaa la sameeyay calanka Soomaaliya loo sameeyay waxa uu sameeyay gumeystihii calanka Soomaaliya uu sameeyay dhexdiisa waxa ku jira calanka Soomaaliya sidoo hadda yahay oo aan waxba laga bedelin ayaa ku dhex jirta waxa ku dhex jira shabeelkii oo astaanta labada dhinac lagu dhajiyay waxa ku dhex jira labadii calaamadood oo labada caleemood ayaa ku dhex jira marka isagii laftirkiisii oo gumaystuhu inoo sameeyay ayaa la soo minguuriyay kii baa naloo qaabeeyay maahana calan anagu aan samaysanay oo qof Soomaali sameeyay oo ka fakiray
ma jiro taariikhdana cadaynaysa qofkii sheegtana hadee ma ogi xaaladdu ay noqon doonto dabcan waxay u taalaa dadka Soomaalida ah inay fahmaan haddaad aragto 1936 in lagu sameeyay calanka noocaana haddana asagii laga soo dhex saaray qaab aad ku aaminto calankan qof Soomaali inuu sameeyay ma jiro 1936 dadka Soomaalida xabada lagu wada ninkii iswaal xabada sanka laga gelinayay dagaal baan ku jiray marka maalintaas qof Soomaali intuu fakaray calanka noocaas inuu sameeyay ma jirin sidaa daraadeed in qof Soomaali uu lu kuleeyahay sameynta calankeena iyo astaanta Soomaaliya waa fikir runtii aan sax noqon karin marka taariikhda la fiiriyo qaab noocee ah ayaad isleedahay waa looga dhaadhicin karaa in bulshada Soomaaliyeed ay calankoodii iyo astaantooda ay yaqaaneen intay ka kaaftamaan ay calan cusub hadda ay qaataan marka ugu horeysa calanka maanta aan haysano iyo astaanta aan haysano ma aha wax kitaabka ku yaala ma aha macna ma aha wax oo aan ku qasbanahay oo na bedeli karin ma aha waa wax ay noo sameeyeen dad rabay inay bedelaan diinteen waxaan rabaa dadka Soomaalida inay fahmaan Talyaaniga iyo Ingiriisku markay imaanayeen labadaba waxay u yimaadeen in ay bedelaan annaga dhaqankeena iyo diinteena dhaqaalaha wadankeena ay qaataan nin marka kuugu yimid ama wadan kuugu yimid inuu diintaadii iyo bedelo hantidaadana qaato wax uu ku sameeyay inaad ku dhigto ma aha wax jira qaabka aan islaanaha u sameyn u dhici doontaan waxa weeyaan bulshada Soomaaliyeed inay runtii garato bulshadu markay garatana Soomaaliya baarlamaankeedu inuu arintaas qaato ka doodo lana ansixiyo calanka cusub iyo astaanta cusub madaxweynuhu uu saxiixo intaas ayaa lagu bedeli karaa wadan noocee ayaad rabtaa inaad u marto inaad ka mara dhaliso fikradaadan adiga ka Sufyaan fikradan qaabka aan rabno inaan uga mara dhalino inaan bulshada marka hore ka dhaadhicino waxaa imaan doonta dabcan dadka sidaan hore u sheegaba dadka inoo taliya ama baarlamaanka ku jireen ama sanadka ahaadeen ama madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ha ahaadeen ama wasiirada ha ahaadeen waddan islaam dad jecel wadankooda wadaniyiina dad jecel dhaqanka wadankooda waxaan aaminsanahay inay maanta fursad dahabiya u tahay baarlamaanka maanta jira iyo madaxweynaha maanta jira inay fursad dahabiya u tahay oo aan qofna soo marin maanta in ay wax ka bedelaan oo ay abuuraan jiil cusub oo Soomaali ah oo leh calan cusub nidaam cusub oo banaanka ka ama nadiif ka ah faragelish shisheeye gumaysi iyo wixii la mid ah inay maanta tilaabo qaadaan tilaabo ah in ay wadankooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inay u heeliyaan maxaa wacay qofka bini aadamka wixii lagu soo tababaro ayuu la koraa haddaad ku soo dabartid calan buluuga oo xidig wata iyo astaan calaamadii Kirishtaanka ay ku jirto oo dadka xataa intooda badani ma fiiriyaan macnaha dadka hadda waxyaabaha cajiibka ah oo aan la kulano waxay tahay qofka markaan soo xulay weligay ma fiirin weligay ma fiirin qof fiiriye ma jiraba calanka markaad weydiisid dadka intooda badan xataa macnihiisa ma yaqaan waxay ku leeyihiin cirku wagi raddi cirka waa nala leeyahay cirka anagu kaliya ma leeyahay fahmino marka baarlamaanka sanadka madaxweynaha ra'iisul wasaaraha wasiirada iyo dhammaan bulshada xubnaha bulshada kala duwan waxay u tahay fursad dahabi ah inay arintan uga faa'iideeyaan shacabkooda ilaahay baa si fursadan inay ka faa'iideystaan saasan rajaynayna hamin talag ayaad ka qabtaa in marun ay bulshada Soomaaliyeed kula qaataan fikradan aad soo jeedisay ee aad ku samaysay calanka cusub runtii aniga iyo dadka arintan aan igala shaqeeyay waxaan aaminsanahay inay tahay arin dhaci doonta insha Allah waqtiga rabta qaadato waxa laga yaabaa inay daahdo waxa laga yaabaa inay soo dhaqsato laakiin waxaan ku kalsoonahay kulligeen qof Soomaali ah oo islaam ah oo waqtigan maanta la joogo diyaar u ah astaantiisa inay ka ahaato qayb ka ahaato calaamad Kirishtaan ah oo waliba gumayste ama nin raba inuu gumaysto diinteena bedelo uu noogu dhex qariyay calaamadii archaic waxa la dhaho mosaic archaic noogu dhex qariyay waxaan u maleynayaa qof Soomaaliya doonaya inuu san jirin waxyaabaha aan ka fakarnay oo aan isla ciladaha ka iman kara waxaa kamid ah مثلا in dawladda anaga aan leenahay aysan ahayn dawlad ka turjumaysa dalka iyo diintaba taasna markii aan fiirinay waxaan iska qancinay tilaabooyinka ay qaadeen qaar kamid ah sida madaxweynaha kaleeto oo baasaboorkii uu lahaa ka noqday waxay noo cadeysay arintaasi in dadka intooda badani ay ama xilkaaya intooda badani ay yihiin dad islaam oo Soomaaliya arintaana oo danta Soomaaliya ka shaqeynaya arintaana ay hirgeli doonto waxa jira calamo kale oo inta badan calanka Soomaaliya u eeg bal calamadaas aan rabnaa inaad iyaga sharaxaad kooban naga siiso waxyaabihii ugu dhaliyay aniga
calanka Soomaaliya iyo astaanta Soomaaliya inaan runtii baaro ama aan isweydiiyo waxa kamid ahaa intaan joogay Mareykanka oo aan jaamacadda ku jiray waxa la kulmay calan u eg calanka Soomaalida oo si walba markaan u fiiriyo waa calanka Soomaalida kalarkii xidigtii intii oo dhan waxaan bartay marka waxaan isku dayay inaan baaro calankaas taariikhdiisu waxay noqotay sidan gobol la yiraahdo Texas oo kamid ah Mareykanka ayaa wuxuu lahaa calanka Soomaalida oo kaleeto dagaal ay la galeen Mareykanka intiisa kaleeto wuxuu ahaa qayb ka tirsan Mexico kala wareegeen dadka la dhaho Caucasian ay kala wareegeen waxay noqdeen wadan iskooda madax bannaan calanka Soomaalida kale samaysteen waa lagu duulay Mareykanka ku duulay Mareykanku wuu qabsaday markuu qabsaday 1920kii ayay calankii iska dhaafeen oo ay bedeleen maadaama wadan cusub ay ka mid noqdeen waxaana calankii qaatay oo ilaa maanta isticmaala calanka Soomaalida oo kaleeto oo wax uu uga duwan yahay aysan jirin waxa isticmaala Air Force General of the United States Air Forces ciidamada cirka generaalada ciidamada cirka ee wadanka Mareykanka waa calankeen oo kaleeto waxaan arki karaa macnaha waxaan soo diyaariyay sawirro ay ku sawirayeen generaalo nimana iyo calankii laftirkiisii oo dabcan dadka dhan wada arki karaan waxa kaloo leeyahay calankan macnaha sida hadda Mareykanku ay yiraahdaan wuxuu leeyahay taariikh ah waxa la yiri markii laga adkaaday oo Texas laga guuleystay ay wax u tageen dad curaafiyiintii waxay u sheegeen in calankani uu yahay calan dagaal aysan ku guuleysan karin state-na uusan qaadi karin anagu dad islaam aan nahay dabcan ma aaminsanin waxaas balse waa taariikh jirta oo halkaas jirta in macnaha ay u qaateen ciidamada cirka generaaladooda ciidamada cirka oo dhan ma waa generals one star xidigta ugu horeysa marka qaadato generaalnimada ayaad calankaas xaq u leedahay inaad gadaal dhigatid micnihiisuna wuxuu yahay aniga cirka xukuma ugu dambeyn waxaan soo gaarnay gabagabadii wareysigan maxaad u soo jeedinaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa bulshada Soomaaliyeed marka hore waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo waqtigooda waxaan kaloo rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed waqtigan xaadirka ee hadda aan ku noolnahay ma aha waqtigii dadka Soomaalida ay aqoontooda yare maanta dadka Soomaalida waxay barteen waxaan leenahay xadaarad aad u sareysa ama ha ahaato diini ama maadi ha ahaato waxaan fahmi karnaa calankani meesha uu ka yimid 1954 ayaa la sameeyay 1954 wadankan xorma xaqiiq ahaan waxaa la sameeyay 1936 markaad aragteen qaybaha hadda aad ka aragteen calaamadaha waxaad arkaysaan meeshii shabeelku ka yimid meeshii labada caleemood ay ka timid xataa qaabka calaamadda astaanta Soomaalida u egtahay iyo qaabkay ku timid waxaas oo arki doontaan marka waxaan ka rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed in ay ku baraarugaan oo ay dib ugu laabtaan ma aha kaliya calanka inay dib ugu laabtaan waxyaabo fara badan oo aan iska aaminay dhaqan inay yihiin oo taariikh ah oo runtii maanta hadii dib loo baaro wax badan ay iska bedeli karaan waxa kamid ah mesela in loo dabaaldego kowda luuliya oo laga yiraahdo waa maalintii xorriyadda kaleeto waxay u baahan tahay in la fiiriyo marka waxaan shacabka codsanayaa inay fikirkan il qaataan wadankeena astaantiisana aan muujino وهاجاك داود يال أنت أصلاً كسوق بجبيننا ورئيس جاركا ومرتدى نوجها أقوياهن سفيان شيخ أحمد وكمل أقوياهن الصومالية إسلام مركزنا شرحات النجسين يجي على مدى كريستان كوشة جاي إنه يكون حجرتا أستان الصوماليات سيدا كلا وحناس وبند جاي على أستان عصوبة وشة جاي إن دون يعني الصومالي وقاتان إسلام مركزنا وجونا كسن يعني متك وهراء اللي يقول حقرية أستان تا أما على مدى كريستان كا داود يال ورئيسك واحد اللي سعودسين يان وعبد الرشيد وبسيا حق دوبستا أما كاميرا وحنوت شجعي صاحب كي عبد الشكور فرح قال له أنت ورئيسك مثل ما كل مدونه وحدك تجي سداسيو نبت قلي هذا يان كوجو ما علينا سفيان ورئيسك صدنا ولا قيب قادته وأنا ما هتصنته